السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صدح داريمون الرق واي كبي الديدان مركا هوين ايدو اي ويناتو رق بدانينا مركا هوين كواوين انا يقرسن كوا قبانا ايوغا تغان ku saabsan xubinka taranka haweeneyda ayaa waxay soo bandhigaan saddexdan arrimood oo raggaasi waxa ay markaas ay yiraahdaan xubinka taranka haweeneydu marka ay weynaato ee ay daan noqoto xubinkeedii tarankuna waa weynaanaya. xubinka taranka waxa kala yiraahdaan waa uu qaboobaya oo dirimaadkii xubinka taranku waa uu ka baxayaa meesha. waxa kale oo ay yiraahdaan xubinka taranku muuqaalkiisi waa uu isbedelayaa oo wuu duugoobayaa ama wuu fool xumaanayaa. saddexda amuurood ayaa ay uga tagaan haweeneydu marka ay weynaato waxaanay gaadhsiiyaan heer marka ay haweeneydiiba u hamoon waayaan. inta badan xataa odayaasha waaweyn ee markaa dumarkaa qaba inay gabadh yar ay ka doorbidaan ayay soo bandhigaan iyagoo saddexda arrimood u sababeynaya. waliba saddexdan arrimood haweeneydii iyadoo qof weyna oo dabeecadeeda iyo dhaqankeeda iyo waxyaabaha kale oo dhan ninkuu ku qanacsan yahay haddana saddexda arrimood baa laga yaabaa inuu uga tago oo haweeney kale uu guursado isagoo saddexda ka cararaya ama ka fogaanaya. waxa markaa jirta bahda qoyska iyo khibrada qoyska marka ay xaaladda ka waramayaan arrinta raggaasi ay tilmaamayaan ee oriyooyinkooda iyo islaamahooda ay uga tagayaan waxa ay yiraahdaan qolada caafimaadka ee qoyska xaaladiisa caafimaad farxadiisa lamaanaha iyo gogosha inta badan ku takhasusay ee khibrada ku ahi saddexdaasi haweeneyda kama joojiyaan inay markaa haweeneydu ay dareenkii ay lahayd ee iyada jidhkeeda markaas ka aloosnaa ee u baahnaa ninkeeda inay kula gudato inay saddexda ay u weydo. marka koowaad markaa qalad bay noqonaysaa ama waxay noqonaysaa dulmi haweeneydii oo iyadu dareenkii leh in markaas ninkii uu saddexda uga tago. sidoo kale xubinka taranka ninka laftiisa haddii uu weynaado isbedel baa ku yimaada oo isaga qudhiisu waa uu jilcaa oo waa uu dabcaa. markaas labada gooboodba sidii ay ku ahaayeen qofka markay da'du soo food saarto ee uu weynaado labadii meeloodba way isbedelayaan. marka in adiga oo xubinkaagii taranku jilcay haweeney yar tiraahdo islaantan xubinkeedii taranka ayaa isbedel ku yimi oo kaagiina uu ku yimi waa mid qaldan waana markaa fikir aan saliim ahayn oo sax ahayn ayay noqonaysaa. waxa kale oo la tilmaamaa in haweeneyda xubinkeeda taranka haddii uu caafimaad qabo iyaduna da'deedu aanay ahayn dee markaa da ay noqotay xaaladda cajuuska ay gaadhay ama dhulyaalka isbedelka ku yimaadaa uu yahay isbedel macquula. laakiin sida ay u buunbuuninayaan ee ay leeyihiin waa uu kala tegayaa waa uu qaboobayaa cad buu noqonayaa aanay ahayn ama xaaladdu sida ay ka bedelan tahay. muuqaal ahaan waa isbedeli karaa qofkii marka uu weynaayo isbedel waa dhacayaa qasab laakiin arrintaasi waa arrin aanay soo dhaweynin bahda qoyska iyo caafimaadku intaba. marka haweeneydu markay weynaado haddii aanay ahayn haweeney markaas caafimaad ahaan u howlgabtay daahaan u howlgabtay markasta waxay xaq u leedahay ninkeedu inuu la joogo gogoshii iyo dareenkeediina inay gudato ninkeedu uu la guto. intaas ayaan ku soo ururinayaa. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.